kahor intaynan gudagelin fiidiyogan like saar si uu gaadho asxaab fara badan even waxa uu ku hadmiyay jiray inuu heer sare ka gaadho maafiyanimada sidaa daraadeed aad ayuu ugu firfircoonaa oo waxa uu waqti badan ku bixin jiray siduu uga fikiri jiray isagoo dad badan dhicin jiray layn jiray una sababi jiray dhibaatooyin aad u fara badan ugu yaraan waxa uu maalintii dili jiray 10 qof isagoo ay aad ula yaabi jireen asxaabtiisa kale ee dadka wada layn jireen sida laajligeed waxa uu maalinta ka dambaysa hanan jiray dalacaado aad u sareysa waxa uu saaxiib dhow la noqday madaxa gaangiska kaas oo u talin jiray dhammaantood waxa uu warwar ku riday dad aad u fara badan mar walba waxay askartu ka fakarayeen ammaanka dadka hase yeeshee waxa la yaabanaayeen waxa dadka sidaa u laynaya dadka la laynaya ama dadka la laayay waxay ahaayeen dhammaantood kuwa madaxa ka joogtay waana taqura ee u saamixi weyday askartu inay sameeyaan raadraac even waxa heshiis u soo bandhigay koox gaangis ahayd kuwaas oo ka jiray magaalada shaharkaagu waa 5 milyan waxaana kugu waajiba inaad soo afgoysid kooxdaad la shaqaysid waxa uu heshiiskii loo soo bandhigay wuuna aqbalay halkaas wax ka bilaamatay colaad uu hayo kooxdiisa waxa la yaaba inaanay mooganeyn ilaa hadda